culimada sayniska ee ku takhasusay haraaga noolaha ayaa ka shakiyay in la culib tiray shimbirtii shimbiraha ugu weyneed ee soo marta ifka aan ku noolahay kadib markii la arkay haraaga lafaheeda. saynis yahanada ayaa shimbirtan magaceeda ku sheegay shimbir maroodi, waxaana ay rumaysan yihiin in adduunka ay ku noolayd shimbirtaasi 10,000 oo sano oo la soo dhaafay. waxaana ay ku sheegeen sababta ay u dabargooday shimbirtan inay tahay ugaarsi lagu hayay isla markaana bini'aadamku ay cuni jireen. shimbirtan oo loogu magac daray shimbir maroodi waxa ay ku noolaan jirtay waddanka Madagascar, kaasoo ku yaala badweynta Hindiya ee qaaradda Afrika. dadkii ugu horreeyay ee dega jasiiradaasi waxa ay ku soo gaareen halkaasi shimbirtan muddo haatan laga joogo 2,500 ilaa 4,000 oo sano. waxaana la sheegay in shimbirtu ay la noolay dadkii halkaasi ku noolaan jiray kumanaan sano ka hor. Dr. Hansford oo ka tirsan jaamacadda sayniska lagu bartay ee lagu magacaabo Zoological Society of London ayaa waxa uu yidhi shimbirta ayaa kumanaan sano ku noolayd halkaasi ka hor inta aan la dabargoynin muddo haatan laga joogo in ka badan 9,000 oo sano. waxaana ay tani inagu dhiirigelinaysaa inaan ka qayb qaadanno ilaalinta duurjoogta iyo weliba dhirta maanta. shimbirta maroodiga ayaa caan ku ahayd jasiiradda dalka Madagascar, waxaana ay ahayd mid aad u weyn oo dhererkeeda lagu qiyaasay 3 mitir. kuma aad u waaweyn ayaa ay dhali jirtay shimbirtaasi. qaar ka mid ah baarayaasha ayaa isweydiinaya su'aasha shimbirtan inay noqon karto noolihii ugu horreeyay ee ku noolaa jasiiradaasi. Professorka lagu magacaabo Patricia Wright oo bare jaamacadeeda isla markaasna ka mid ah baarayaasha ayaa waxa uu yidhi ma garan karo halka ay ka timi, balse ma ogaan karno ilaa laga sameeyo baaritaano kale oo ku salaysan haraaga noolahan. Saciid Axmed Tamreyse, wararka telefishanka caalamiga ah Star.